wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka ambabaxay magaalada Garowe iyaga oo ku sii jeeda magaalada Qardho halkaas oo waxyeelo xoogan ay ka soo gaadhay dadka deegaanka daadad xoog leh oo ka dhashay roobka xilliga guga oo 24 saac ee la soo dhaafay si xiriir uga da'ay nawaaxiga iyo gudaha degmadaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weelinayaan wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa ujeedka ay u tagi doonaan magaalada Qardho waxa ay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen waxyeeladii xooganeed ee ka dhalatay daadadkii ka dhashay roobka xilliga guga oo ka da'ay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Bari madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa booqan doona xarunta cisbitaalka magaalada iyo xaafadaha qaar ee waxyeelada xoogan ay soo gaadhay hayeeshee warar hordhaca oo soo baxaya ayaa sheegaya in khasaare dhimasho ay ka dhasheen daadadkii xooganaa ee ku soo rogmaday degmada Qardho halkaasoo saacadihii ugu dambeeyay roob xoog leh ay ka da'een daadadka ku rogmaday qaybo ka tirsan xaafadaha magaalada Qardho ayaa ahaa kuwii ugu xooga badnaa waxaana inta badan daadadku ay ka dhasheen roob muddo saacado badan qaatay oo ka da'ay gudaha iyo daafaha magaaladaasi wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta ay ka helayso deegaanka ayaa sheegaya in tirada dhimashada waxyeelada soo gaadhay ay gaarayso ilaa 7 qof kuwaasoo dumar iyo caruur u badan waxaana cisbitaalka buu dhaafiyay dad badan oo dadka eheladooda raadinaya kuwaasoo qaarkood iminka raq iyo ruuxba ay ku leeyihiin sidoo kale biyaha ka horay roobka xilliga guga ee ka da'ay qayb ka tirsan gobolka Bari waxa ay cagta mariyeen suuqii weynaa ee magaalada Qardho iyadoo halkaas ay ku ceeroobeen ganacsato aad u fara badan wararka ayaa sheegaya in biyaha ay sidoo kale dumiyeen guryo aad u badan waxaana ay horay biyaha ula sii tageen gawaari baakin ku jirtay maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga booliska iyo qayb ka mid ah dhalinyarada ayaa wada gurmad degdeg ah oo ay doonayaan sidii ay ku samata bixin lahaayeen dadka waxyeelada ay soo gaadhay ma jirto ilaa iyo iminka wax war ah oo sugan oo xaqiijin kara inta ay la eg tahay khasaaraha ugu badan ee daadadka ka dhashay walow ay socdaan baaritaano iyo tirikoob lagu ogaanayo dadka ay waxyeelada ka soo gaadhay daadadka ku soo rogmaday qayb ka tirsan xaafadaha magaalada Qardho xubno ka socday wasaaradda caafimaadka dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta agab caafimaad oo isugu jira dawooyin iyo agab kale oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu haleelo xanuunka COVID-19 waxa ay ku wareejiyeen wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada dadaalo aad u xoogan oo looga hortagayo xanuunka COVID-19 iyadoo shalay gelinkii dambe wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay xariga ka jirtay goob gaar ah oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu haleelo xanuunka coronavirus waxaana isla maanta la gaarsiiyay xaruntaasi agab caafimaad oo ay ka mid ahaayeen dawooyin iyo agab kale oo ay ka mid yihiin difaaca COVID-19 sida waxyaabaha afka iyo sanka lagu xirto oo ay maanta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka gudoomeen dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka inkastoo aanan jirin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah Koonfur Galbeed qof qaba xanuunka COVID-19 haddana Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay wada dadaalo aad u xoogan oo ah ka hortaga ayadoona talooyin iyo sidoo kale digniino ay bixinayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa sii kordhaysa cabsida laga qabo fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle ee dhexmara bartamaha magaalada Beledweyne iyadoo warayno ka helino xadka gobolka Hiiraan uu la wadaago ismaamulka Soomaaliya dalka Itoobiya si weyn looga barakacay tuulooyinka Maracad Galcusbo iyo degmada Qalaafe iyo Mustaciil kadib markii fatahaad uu ku sameeyay webiga Shabeelle deegaanadaasi roob xoogan oo ka daayay kilinka sanad ismaamulka Soomaaliya dalka Itoobiya ayaa sababay daad xoog leh inay ku soo rogaan webiga taasoo baqdin xoog leh ku abuurtay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dhawaan ay ahayd markii degnin adag uu soo saaray maamulka gobolka Hiiraan ee ku wajahan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne inay taxadir dheer ay muujiyaan labadii maalin ugu dambeysay ayaa waxaa sarkacad u ballaaran laga dareemay biyaha webiga Shabeelle taasoo ku dhaqan magaalada Beledweyne gelisay baqdin xoog leh dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa inta badan markay dhacday fatahaada biyaha webiga Shabeelle waxay u barakacaan deegaanada taayiga sida deegaanka Ceel Jaalle ee garoonkii hore diyaaradaha si ay ugu badbaadaan fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa hadalaynta ugu badan waxay maanta noqotay halka ay biyaha soo marayaan
gudoomiye hore ee maamulka gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay cabsida laga qabo fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle xilli gobolada Soomaaliya ay ka curteen roobabkii dayrta waxaana shacabka ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ay ka cabsi qabaan in mar kale uu saameyn ku yeesho fatahaad uu sameeyo webiga Shabeelle xilli 7 bil ka hor laga barakacay inta badan xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. war qoraal ah oo ka soo baxay gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayuu ku sheegay in xaaladda webiga aad looga dayrinayo gaar ahaan magaalada Beledweyne. Thaabit ayaa sheegay in webigu uu bilaabay qarnaaf waxaana walaac ka muujiyay in ay dhici karto halis ka imaan karta fatahaadda webiga Shabeelle isaga oo sheegay inay nasiib darro tahay in aan waxba laga baran waxna laga qaban dhibtii dhacday. sidoo kale Thaabit ayaa u mahad celiyay maamulka gobolka Hiiraan oo bilaabay dadaalo looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle kadib markii mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ay bilaabeen olole carra tuur loogu sameynayo webiga Shabeelle. ugu dambeyn Thaabit ayaa dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ugu baaqay inay u istaagaan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda webiga Shabeelle. Oktoobar 2019 ayay ahayd markii fatahaadda webiga Shabeelle uu khasaare ba'an gaarsiiyay dhowr magaalo haba ugu sii darnaatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ku baaqay in si wadajir loogu istaago sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee waxyeello ka soo gaartay daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardha. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay masiibada naf iyo maalba leh ee ka dhalatay daadadkii ku fatahay magaalada Qardha waxaana uu ku baaqay in si wadajir loogu istaago shacab iyo dawlad ahaanba si loogu gurman lahaa dadkaasi waxyeellada soo gaadhay. madaxweynaha ayaa tilmaamay in murugta ay la wadaagayaan boqolaalka qoys iyo hooyooyinka iyo hantidooda ku waayay daadadkii ku soo rogmaday magaaladaas iyadoo dalkeena uu sheegay in xilligan ay ka jirto halis caafimaad iyo sidoo kale inay jiraan markaasi dhibaatooyin kale oo ka dhalanaya roobabka haatan ka da'ayo gobolada dalka. waxa uu madaxweynuhu yiri waxaan idinla qaybsanaynaa murugta iyo dhibta idin soo gaartay waa ila socotaa dawladda federaalka Soomaaliya dhibaatooyinka halkaas ka jiro waxaan rajaynaynaa in gurmad la idin soo gaarsiiyo maadaama deegaano badan roobkii uu ka curtay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu bogaadiyay isu gurmashada iyo isgarabtaaga ay sameynayaan dadka Soomaaliyeed ee deegaanada gobolada dalka ku nool. booliiska ismaamulka Kawaale ee dalka Kenya ayaa toogtay Suleymaan Cali Kodza oo ahaa nin looga shakisanaa inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab isla markaana maalin ka hor ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta. Kodza ayaa la sheegay in booliiska uu ka soo baxsaday isla markaana waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa hoggaanka Al-Shabaab ee gobolka xeebta inkastoo aysan booliiska soo bandhigin cadeymo dheeraad ah oo ay ku xaqiijinayaan waxyaabaha ninkan ay uga shakiyeen iyo sababta xabsiga uu uga soo baxsaday. saraakiil ka tirsan booliiska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ninkan uu isku dayay in uu gudaha dalka Soomaaliya u gudbo hase ahaatee xogo dheeraad ay ka heleen isla markaana booliiska Kawaale ay ugu tageen goob uu ku sugnaa isagoo isku dayay in mar kale uu baxsado sidaana ay ku toogteen iyaga oo ugu baaqay shacabka ku nool guud ahaanba gudaha dalka Kenya inay u soo gudbiyaan xogaha la xiriira dadka looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ee gudaha dalka Kenya ku sugan. Al-Shabaab waxa weeraro ay ka geysanayeen dhawaanahan gudaha dalka Kenya weeraradaasna waxa khasaare isugu jira naf iyo maal uu ka soo gaarayay guud ahaanba dadka ku nool deegaanada ay weeraraan. hasaate Al-Shabaab ayaa sheega in Kenya aysan weerarada ka joojin doonin inta ciidamadooda ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. hay-adda Hormuud Foundation ayaa maanta waxay deeq gaarsiisay xabsiga dhexe ee Xamar iyo sidoo kale ciidamada naafada qaranka oo ku dhaawacmay dagaaladii 7/7 oo qayb ka mid ah ku jira isbitaal Martini. hay-adda Hormuud Foundation ayaa xabsiga dhexe waxay gaarsiisay raashin kala duwan. Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah gudoomiyaha hay-adda Hormuud Foundation oo warbaahinta kula hadlay xabsiga dhexe ayaa ka warbixiyay deeqda ay maanta gaarsiiyeen maxaabiista ku jirta xabsigaasi. dhinaca kale Cabdullaahi Nuur Cismaan waxa uu ka warbixiyay sidoo kale deeqda ay gaarsiiyeen maanta ciidamada naafada qaranka ee ku jira qayb ka mid ah isbitaal Martini. shirkadda Hormuud Telecom oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala Soomaaliya ayaa marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay intooda badan caawisaa dadka masaakiinta ah.
barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa warisay in ka badan 265 milyan oo qof kuwaasi oo ku nool wadamada saboolka siiba qaaradda Afrika ay haatan la liitaan baahi aad u daran. waxaa kaloo WFP ay sheegtay in dadkan gaajadu ay aad u hayso dunidu ay ku sii kordhayaan iyadoo hadda guud ahaanba caalamku aad ula dala dhacayo xanuunka COVID-19. waxaa kaloo jirta in dalalka saboolka qaarkoodba uu weli farabaan ku hayo COVID-19 kaas oo dunida safmareen ku ah.